Ma ogtahay in 5 waddan oo Carbeed ay weerar ballaaran ku qaadeen Israa'iil 15 May 1948 hal maalin uun kadib markii Israa'iil ku dhawaaqday madaxbannaanideeda. Dalalkaasi waxay ahaayeen Masar, Suuriya, Urdun, Ciraaq iyo Lubnaan, iyadoo ay taageero ka helayeen Sacuudi Carabiya iyo Yemen. Halka Urdunna waxaa joogay boqortooyadii midowday ee Ingiriiska, iyadoo Urdun loo tababari jiray ciidamada. Si arrintan aynu fahanno waa inaan dib ugu noqonnaa ka hor 1948 waqtigaas ma jirin dawlad la odhan jiray Israa'iil. dhulkan waxa loo yaqiinay Falastiin oo hoos tagisay maamulkii waqtigaas ee Ingiriiska, waxaana dadka Carabta Falastiiniyiinta ahi ay ahaayeen aqlabiyadda. markii la gaadhay sodomiyadii cadaadiska iyo silcinta naasiyiintu ku hayeen Yuhuudda Yurub ayaa sii xoogaysanaysay. Yuhuud badan ayaa la eriyay, loo gaarsanayay, mana lahayn meel ammaan ah oo ay u qaxaan. silcintaas ayaa ugu dambeyn isu beddeshay Holocaust, halkaas oo qiyaastii 6 milyan oo Yuhuud ah si nidaamsan loo dilay. iyadoo aysan jirin meel ammaan ah oo ay aadaan, maraakiib badan oo sida Yuhuud ayaa bilaabay inay yimaadaan xeebaha Falastiin. Falastiiniyiintiina waa ay soo dhaweeyeen, laakiin markii ay korodhay soo galootiga Yuhuuddu, waxaa sidoo kale xoogaystay baaqi ahaa in Falastiin laga dhiso dawlad Yuhuud ah oo madax bannaan. Carabta Falastiiniyiinta ah oo weli ahaa aqlabiyadda dadka way diideen arrintaas. xiisadii jirtayna waxay isu beddeshay dagaal sokeeye oo dhex maray Carabtii Falastiiniyiinta ahaa iyo xoogagii Yuhuudda. sanadkii 1947 qaramada midoobay waxay soo jeedisay xal ah in Falastiin loo qaybiyo laba dawladood. qiyaastii 56% dhulka waxaa la siin lahaa dawladda Yuhuudda ah, qiyaastii 43% waxaa la siinayaa dawladda Carabeed ee Falastiiniyiinta ah, halka Qudusna looga dhigi lahaa caasimadda Falastiiniyiinta. hogaamiyayaasha Yuhuuddu waa ay aqbaleen qorshahaas, laakiin hogaamiyayaasha Carabta Falastiiniyiinta ahi waa ay diideen. sababta weyn ay u diideenna way caddayd. qiyaastii 1.2 milyan oo qof waxay ahaayeen Carab Falastiiniyiin ah, halka Yuhuuddu ay ahaayeen ku dhawaad 600,000 oo keliya. aragtidooda marka loo eego, dadka aqlabiyadda ah ayaa la siinayaa dhulka yar, kan la siin lahaana waxa la siinayaa dadka laga tirada badan yahay.